halkani waa Toos TV kusoo dhawaada xogihii ugu dambeeyay dalka Itoobiya qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa kamid ah xabad joojinta ay ku dhawaaqday TPLF waxaa soo dhaweeyay midowga Afrika dawladda Mareykanka iyo midowga Yurub waxayna sheegeen in ay arintani tahay tilaabo loo baahnaa in mar hore la qaado ciidamada dawladda Itoobiya ee ku sugnaa deegaanada Humera Shire Shareero iyo Adibayo iyo sidoo kale qaybo kamid ah deegaanka Canfarta ayaa saaka bilaabay in ay deegaanadaasi dib uga baxaan dagaal khadhaadh ayaa ka socda xuduudda u dhaxaysa dawladda Itoobiya iyo Suudaan waxaana dhex maraya ciidamada Suudaan iyo sidoo kale ciidamada Liyu Booliska dawladda deegaanka Amxaarada oo garabsanaya ciidanka militariga dalka Suudaan qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeena daawadayaal balse haddaad nagu cusub tahay ha ilaawin inaad subscribe garayso haddaad nala sii joogtayna la wadaag saaxiibadaada aynu ku bilowne xabad joojinta ay ku dhawaaqday falaagada TPLF shalay ayna ku sheegtay in ay doonayso in shacabka Tigreega iyo shacabka Itoobiyaba aysan dib dambe u maqlin dhawaaqa rasaasta dhinaca kalena ay doonayaan in xaaladda cakiran ee gobolka Tigreega wax laga qabto loona sii daayo xaquuqaha aas-aasiga ah ee ka maqan iyo sidoo kale dhibaatooyinkii soo gaadhay in wax laga qabto midowga Afrika ee loo yaqaan African Union ayaa si weyn u soo dhaweeyay arrintaasi waxayna sheegeen in ay tahay tilaabo loo baahnaa in mar hore la qaado iyagoo ugu baaqay labada dhinac ee Itoobiya iyo TPLF in ay xaalka jawi nabadeed iyo wada hadal ku soo gabagabeeyaan waxay sheegeen in ay qayb libaax la ka qaadan doonaan sidii labada dhinac xaaladaha ay isku hayaan guul looga gaari lahaa dhinaca kalena shacabka Itoobiyaanka loogu furi lahaa albaab kale oo ka duwan midkan colaadeed ee hadda ka hulaaqahaya waqooyiga dalka Itoobiya sidoo kale dawladda Mareykanka ayaa soo dhaweysay dadaalada ay wadaan midowga Afrika iyo sidoo kale xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan Afrika iyo sidoo kale wadamada caalamka isku dayay inay isu keenaan labada dhinac ee TPLF iyo dawladda Itoobiya wuxuuna Mareykanku sheegay in ay kala shaqeynayaan wax walba oo TPLF iyo Itoobiya ay ku heshiin karaan dhinaca kalena xaaladan colaadeed ee maalinba maalinta ka dambaysa si xumaanaysa iyo khasaarahan si dhalanhayo lagu soo afjari karo saaka waxa iyaguna war-saxaafadeed soo saaray midowga Yurub oo sheegay in ay taageersan yihiin xabad joojinta TPLF isku dayada ay wadaan midowga Afrika iyo sidoo kale dadaalka dawladda Mareykanka waxayna ugu baaqeen labada dhinac ee colaadda isku hayo in ay xaalka ku soo gabagabeeyaan jawi nabadeed wada hadal iyo sidoo kale in la isu furo ee gacan walaaltinimo waxay sheegeen in midowga Yurub uu ka garab istaagi doono dawladda Itoobiya iyo sidoo kale gobolka Tigreega wax walba oo horey loogu sii dhaqaajin karo xal kasta oo nabad loogu doonayo gobolkaasi balse ilaa iyo hadda dawladda federaalka Itoobiya wax jawaaba kama aysan bixinin xabad joojinta TPLF ay ku dhawaaqday soo dhaweynta midowga Afrika midowga Yurub iyo dawladda Mareykanka iyo baaqaqa ka soo baxaya la xiriira in ay doonayaan in xaaladda dalkaasi ka taagan jawi kale oo nabadeed lagu soo dabaalo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo xukuumaddiisa ayaana arrintaasi si weyn uga gaabsaday iyadoo oo ay calaamatu su'aal ka taagan tahay ku dhawaaqista TPLF ee arrimahan dagaalka warbixinada kale na soo gaadhay ayaa sheegayo in la gaadhay heshiis hordhaca oo ay ka mid tahay in ciidamada militariga Itoobiya ay bataatanba iskaga baxaan goobaha ay gacanta ku hayaan oo ay ka mid tahay deegaanka Humera Walqayt iyo gobolka Raaya oo ahayd xudunta colaadda gobolka waqooyiga ee dalka Itoobiya iyo sidoo kale khilaafka u dhaxeeya TPLF iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa magaalada Humera ayaa la sheegay saaka in ay halkaasi ka qaateen taangiyadoodii dagaalka sidoo kalena ay ka guureen xeryahoodii iyagoo dib uga gurtay furimihii ay ku sugnaayeen dhinaca kalena u guuray dhinaca dawlad deegaanka Amxaarada balse maleeshiyaadka qoomiyadda Amxaarada iyo sidoo kale ciidanka Liyu Booliska dawlad deegaanka Amxaarada ayaa arrintaasi si weyn uga soo horjeedsaday waxaana la sheegay in ay wali ku sugan yihiin gudaha magaalada Humera xilli TPLFna ay ka soo dhaqaaqday furimaheedii dhinaca kalena ay doonayso inay gudaha u soo gasho magaalada Humera ka bixitaankan ciidamada Itoobiya waxa kaloo jirta in ciidanka Itoobiya ay ka baxeen deegaanada ay gacanta ku hayeen oo ka tirsan deegaanada Shire Shareero Adibayo iyo sidoo kale deegaanka Ageeru oo maalmihii u dambeeyay dagaal xoogan uu ka socday dhinaca kalena khasaaro badan ee halkaasi uu ka dhashay ciidamada Itoobiya gaasi ku sugnaa bataatanba waa iskaga baxeen waxayna gudaha u galeen dhinaca dawladda Eritrea iyadoo la sheegay in ciidanka Eritreanka ee aagaasi ku sugnaana ay raaceen ciidamada Itoobiya ka bixitaanka ciidamada Itoobiya aagaasi ayaa lagu macneeyay
in ay salka ku hayso heshiiska hordhaca ee ay gaadheen TPLF iyo dowladda federaalka Itoobiya dhinaca kalena ay bilow u tahay in uu sii socdo heshiis nabadgelyo oo lagu xalinhayo xaaladda qallafsan ee ka taagan guud ahaan dalka Itoobiya falanqeeyayaal iyo xogogaal siyaasadeed iyo sidoo kale dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda geeska Afrika iyo sidoo kale caalamkaba oo wax ka weydiinay ka bixitaanka ciidamada Itoobiya ku dhawaaqista xabad joojinta iyo sida wadajirka ay u soo dhaweeyeen midowga Afrika midowga Yurub iyo dowladda Mareykanka tilaabada ay qaaday TPLF ayaa sheegay in ay jiraan heshiisyo hordhaca oo labada dhinac ay gaadheen balse aan warbaahinta iyo caalamka loo soo bandhigin waxaana la sheegay in natiijo fiican laga gaadhay wadahadaladii ka socday magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Djibouti kuwaas oo ay garwadeen ka ahaayeen midowga arrimaha Afrika u qaabilsan dowladda Mareykanka iyo madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle dhinaca kalena ay wehelinayeen xubno ka socdo midowga Afrika midowga Yurub iyo sidoo kale ururada caalamiga ee u dooda xuquuqul insaanka waxa la sheegayaa qodobada laga wada hadlay inay ka mid yihiin in xuquuqaadka asaasiga ah sida caafimaadka biyaha waxbarashada korontada isgaarsiinta iyo sidoo kale kaalmaha bini'aadantinimo loo furo gobolka Tigreega dhinaca kalena ciidamada amxaarada iyo ciidamada militariga Itoobiya ku sugan gobolada Walqayt Raaya Waqooyi iyo sidoo kale dhinaca xuduudda Canfarta iyo Eritrea in ay iskaga baxaan sidoo kale waxa la sheegayaa in ciidamo ilaalin doono nabadgelyada labada dhinac oo ka socdo qaramada midoobay la keeni doono xuduudka u dhaxeeya deegaanka amxaarada iyo Tigreega maadaama ay arrin halkaas ka taagan tahay arrin la xidhiidha dhinaca dhulka dhinaca kale labada qowmiyadood ay isku khilaafsan yihiin hanaanka lagu maamulayo dalka Itoobiya ayna tahay xudunta colaada ka hulaaqayso guud ahaanba dalka Itoobiya sidoo kale waxa la sheegay marka uu soo gabagaboobo kulankan ka socdo magaalada Djibouti caasimadda dalka Djibouti in labada dhinac ay kulan kale ku yeelan doonaan dalka Mareykanka halkaana lagu saxiixi doono heshiiska kama dambaysta ee gaadhaan TPLF iyo dowladda dhexe ee federaalka Itoobiya halkaana xal waaro lagu gaari doono si loo xaliyo colaada dalka Itoobiya arrintan ayaa la sheegay in dowladda Mareykanka ay ka faa'iideysanayso dhinaca kalena ay dabada ka riixayso maadaama cabsi weyn ay ka qabto isballaarinta dowladaha Shiinaha iyo sidoo kale Ruushka ee qaaradda Afrika iyo sidoo kale geeska Afrika oo xilligan muhiim u ah wadamada isku haya caalamka waxa la sheegay dowladda Mareykanka inay balaayiin dhaqaalaha ku bixinayso sidii labada dhinac ay guul uga gaari lahaayeen dhinaca kalena ay iskugu imaan lahaayeen in ay aad uga shaqeynayso dhinaca kalena isku taxalluujinayso Itoobiya iyo sidoo kale TPLF cadaadis xoogan ayuu Mareykanku saaray oo dowladda Itoobiya in badan ku eedeysay in uu qayb ka yahay burburinta dalka Itoobiya una si weyn uga soo horjeeday ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed faragelinta uu ku haya dalkiisa iyadoo mudaharaadyo kala duwan lagu dhigay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya iyo deegaanada guud ee dalka Itoobiya lana sheegay in hay'adaha qaramada midoobay hay'adda caafimaadka adduunka iyo dowladda Mareykanka ay ka midaysan yihiin inay burburinayaan guud ahaanba dalka Itoobiya iyadoo dhinaca kalena ay soo baxayeen in diyaaradaha Antonov ay geeyeen gobolka Tigreega hub aad u culus iyo sidoo kale gantaalo taana ay Itoobiya walaac ku abuurtay lana sheegay in diyaaradaha dronka diyaaradaha miiga iyo helicopterta ay dhaqaaqi waayeen dhinaca kalena dagaalka aysan wax saamiya ku soo kordhinin intaasi marka laga yimaado xaaladda guud ee dalka Itoobiya wada hadallada u dhaxeeya TPLF iyo xukuumadda Addis Ababa dib ayaan idin ka soo gudbin doonaa daawadayaal dagaal khadhaadh ayaa la sheegayaa inuu ka socdo xuduudka u dhaxeeya deegaanka amxaarada ee dalka Itoobiya iyo sidoo kale dalka Suudaan dagaalkan saaka subaxii hore ayuu bilowday waxaana la isku adeegsanayaa hubka waaweyn iyo gantaalada culus ee meesha fog wax ka gumaado labada dhinac ayaana isku adeegsanayo hubkaasi waxa la sheegay in dad fara badan oo deegaanka aagaasi ku sugan ay ku barakaceen khasaarana uu ka dhashay labada dhinac ilaa iyo hadda wax wara kama aysan soo saarin dagaalka u dhaxeeyo balse waxaana loo xaqiijiyay in dagaalkan ay qaaday dowladda federaalka Itoobiya oo ay ku ekaysay furimahaasi iyadoo oo maalmihii u dambeeyay ciidamada militariga Suudaan ay lagu soo daadgureynayay deegaanadaasi sidoo kalena ciidan fara badan oo aad u tayeysan qalab kala duwan wato aagaasi lagu soo shubay bilowga dagaalkan ayaa la sheegay in uu dhinaca kale la xiriiro ama dabada ay ka riixayso dowladda Eritrea oo horay iyadu ugu hanjabtay in ay doonayso in ay dagaal ku qaado dalka Suudaan sidoo kalena ay burburin doonto marka ay ka soo farxalato dagaalka ay kula jirta TPLF dagaalkan ayaa si cuslaanaya saacadba saacada ka dambayso balse waxaan idin soo gudbin doonaa xogta rasmiga ee dagaalkaasi la xiriidha iyo sidoo kale wada hadallada u socda TPLF iyo dowladda federaalka Itoobiya daawadayaal halkaad nagala socotaan waa Toos TV dhinaca kalena waxaa la sheegayaa in qoomiyadda Oromadu ay si weyn
oo uga hor imaatay wadahadalladan u bilowday TPLF iyo dowladda dhexe federaalka Itoobiya ayna ku baaqahayaan in colaadda aysan ku ekayn kaliya waqooyiga balse deegaanka Oromiyana ay ka jirta xaalad colaadeed oo aad u kacsan loona baahan yahay in dhinacyada isku haya Itoobiya oo dhan heshiiskan la gaarsiiyo sidoo kalena uu noqdo heshiis ay u dhan yihiin qoomiyadaha Itoobiya si loo soo afjaro xaaladda sii xumaanaysa guud ahaanba ka taagan gudaha dalka Itoobiya marka la eego xaaladda Itoobiya waxaad moodaa in sanadihii u dambeeyay hubka la isku aruursanayay qoomiyad kastana ay sideeda isu abaabushay marka laga yimaado qoomiyadda Soomaalida xaaladda dalka Itoobiya wixii ka soo kordho waxaan idinku soo gudbin doonaa halkeennan oo ah Toos TV adigana waxaan ka codsanaynaa in aad barnaamijka gaarsiisa saaxiibadaada dhinaca kalena aad taageero iyo dhiirigelin oo muujiso ood bottomka subscribe-ka iyo sidoo kale alamka furato si mar walba xogteena ay kuu soo gaadho mahadsanid. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.